tahay oo dhaqankii hawlaa dhulkayga lay saaray hibadee. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada janalka Haybad Media Production. maanta waxaa janalka aan kusoo qaadan doonaa barnaamijyo ila qosala aniga saaxiibkay Cadde, magacaygu waa Hashim Cabdullaahi Axmed, saaxiibkay Maxamed ayaa isna dhinacayga fadhiya oo dadku u garan og yihiin Cadde. waxaan rabaa saaxiibkay Cadde inaan su'aal weydiiyo niyo janalka markaan sameynay oo janalkani soo baxay su'aalo badan oo nagu soo noqnoqday baa jiray oo janankani wuxuu qaban doonaa maxaad ku soo bandhigi doontaan su'aalo noocaas ah jiray marka bal saaxiibkay Cadde ayaan rabaa inuu dadka ka jahli bixiyo janankani waxyaabaha uu qaban doono bulshada iyo barnaamijyada lagu soo bandhigi doono isla mar ahaantaana ay dadku ka filan doonaan inuu dadkaasi janankaasi u qabto kusoo dhawo saaxiib Cadde. niyo waan dhawahay Hashim aad iyo aad u mahadsan tahay. janankan saad ogtihiinba muddo badan ayaan kusoo taamaynay markaan bulshadii u soo bandhignay ee social media u soo galay uu hawada si toos uga shaqayn bilaabayna dadka su'aalaha ay nagu soo bilaabeen waxayna dhaheen mar walba oo meel aan la isku wada kulmo aan meesha nimaadno janankiina muxuu soo saari doonaa ama muxuu qaban doonaa. janankan insha Allah wuxuu qaban doonaa uu soo saari doonaa on rajaynayna inuu wax ka qabto wax walba oo hadba dunida ka cusub ama dadku ay falanqeynayaan ama falanqeyn u baahan ama in wax laga hadlo u baahan inaanu ka hadalno. sidoo kale iyadana waxaan ku saar doonaa xagga suugaanta majaajilada iyo riwaayadaha ila qosolka ah. inahaas ayaanu kusoo qaadan doonaa insha Allah janankan. marka waxaan rajaynayaa cidii su'aal kala qabta u malanaysa janankan inuu siyaasad kaliya u sameeyay yahay ama uu sameeyay yahay fan iyo suugaan oo kaliya ma aha janan wax gooni ah u sameeysan wuxuu noqon doonaa janan wax walba oo ka dhacaya dunidan isla markaana hadalhayntiisu ay taagan tahay inaanu kaga hadalno yaa loo sameeyay janankan insha Allah. wax su'aalo kale ma jirta oo la soo weydiiyay marka hore baan isu galeynaa hawlaheena. aad baad mahadsantahay saaxiibkay Cadde. barnaamijka ku sii guda gali doonaa maanta halkan waxaan saaxiibkay aniga Caddo isku la wadaagi doonaa barnaamijyada nin waliba waxaa jirta waayaha nololeed iyo adduunyada markuu qofku joogo wax ka yaabiya jira qof walba ka qosliya bal maanta aniga saaxiibkay Cadde waxaan is weydiin doonaa nin waliba markuu yaraa ama yaraantiisii ama wixii ugu la yaabka badnaa uu arko ama wixii ka qosliyay markuu inta dunida joogay ama isaga dib uu arkay ama la yaabo. saaxiibkay Cadde waxaad iiga warantaa sheekadii kugu la yaabka badnaa intaad nooleed bal maanta nooga sheekee. aniga horta hadii sheeko la yiraahdo la yaab badan way badan tahay sheekada la yaabka badan laakiin aniga qiso igu dhacday ayaa kaaga sheekeynaya waa gartay hal mar qisadaas aan doonaynaa waxaan rabnaa qisadaas in badan ma qarqarinay laakiin dad ba waxay ugu dhahaniyo barnaamijyada qisooyinka iyo hawlahaas Haybad Media maad ku soo bandhigtaan. marka Haybad Media qisadii ugu horeysay ee ugu dhacday intaas dadka aan ka soo qarinay ayaan rabaa maanta inaan banaanka ku soo dhigo taan doonaya taasaba. marka waxay ugu dhacday bari anoo yaroo markaas soo koraya xilliga kurayga loo yaqaano xiniyo guduudiska waa gartay xilligaas oo ku jira ayaa waxaan sheeda ka badalka u sharaxay xiniyo guduus waxa la yiraahdaa kurayga markuu 16 madaxa la soo dhaafo 17 uu aad u gaarin meelahaas aduu 15 16 ku jiro waa cilmiyeed xilligaas ayaa la yiraahdaa xiniyo guduus waa xilliga uu kurayga isugu qurqurinta badan yahay waa ka socon marka halkaas anoo maraya oo ari la jooga ayaa goobta ariga la joogay ayaa gabadh baa soo garab gashay ari iyada la joogta gabadhii markii sheedan ka arkay habeen walba iyo maalin walba oo saragnaa gabadhaas marka hogaadee oo dareen waxa jira moogtahay bini'aadantinimo oo nagu abuuran gabadhii markay la sheekaystaan jeclaaday صح gabadhii markaan damcayna la sheekaysto waxa dhacday marka gabadhii inay tiraahdo inay aan meesha ay u tiraahdo gurigeenaga iyo halkaas aruurada laba kelmo isma dul saari karo laakiin shukaansigaada aqoonba shukaansigaana ba aqoonba laakiin bareefada loo ay
tahadar bareefadadan iyo waxaas maysan jirin waagaas waa garta marka aanu xilligaas waxaan islahaa dee sheekadu markaa sheekadu waxay lahayd nuxur bay lahayd waa waayihii hore da sheekadu ay nahdalaayad waan ku arkay waan ku caashiqadina maysan joogin hadda haddii qof u sheeka la yidhaahdo aad uguma sheekeeyanba waaya inta ka dambaysana waan cilmi qaatay oo waxaan ku cilmi qaatay sheekooyinkii ugu dhacay iyo sheekooyinkaasoo waxay noqon lahayd hadda haddii waayahaas lay arki lahaa oo layla yaabi lahaa waayaa dhexdeed maxaad kala kulantay gabadhaas gabadhii waxaan kala kulmay hadalii dhammaantii gabadhii habeen bay ballamisay habeenkii baa gurigooda ugu yimid marka gurigooda ugu yimid ayaa ardaaga darin weyn igu kala bixisay darintii markay igu kala bixisay ayaa waxay ugu tiri haye bal ka waran xaaladda waa fiicanahay jawiga ka waran waa wanaagsanahay waa adu salaantii la isla dulmar intii aan iska kulankahay salaani dhammaatay gabadha waan isnaqaanaayo waan isbaran iyo barasho meesha ma taallo waan isaqaanaa waa heble hebel anna hebel baan ahay sax marka sheekada halkaa marayso ayay sheekadii dee soo gabaabsatay oo ay godka kusoo dhammaatay sheekadiina dee waxa moogtahay haddii qofku hadal sii wadwadahayo waxaan buu ka hadli lahaa laakiin waxaan ku hadlaa ma garan waayba ay kaa guuxilida qaar ceelkii baa galloobay af Soomaaliga afkii dee macnaha waxaan qofka ku dhihi lahaa waa waayba marka dee intiiba waayay ayaa waxaan ku yiri ay aniga maanta halkaa markaan maraynay suu cawsuga soo cunayay bay u tirinayo halkaa arigu ku wacnaa macnaha iska maneenaade oo macnaha hadalkii bay igu soo gaabisay arigu halkaas iska wacneed arigu ku wacnaa markaasaan dadna waxaan ku hadlay garan waayo dhammaan waa arday yar oo geedaasa lagu wareejiyay la yiraahdo geedka meegaaga la yiraahdo geedka meegaaga la yiraahdo xilliga reerku xilligu meesha uu ku cusbaayo geedka meegaaga la yiraahdo xilligu jiicamoodka iyo uusan aad u qalalin ayay inta la soo jaraa dhulka la qotomiyay marka muuran aad u qalalin haddii aad qori ka jabsastaadar wuu sii liicayaa wuu ku jabayo wuu liicaya ilaa dad waxaa jira caloodayga ka raadiyo waxay jabiyaan iyo waxay faraha ka qaadaan iyo waxay afka galgeliyaan iyo waxaas dadku calooday ka raadiyaan moogta marka anu geedkaas aan calooday ka raadisiin iyo dhiirigelin geedkii markaan qabto wuu isi leecawn laan walba qabo waa ku marateen marka geedkii markaad qabato wuu sii leecayaa maba ii jabayaba geedaa qayb xaasidii haye anigoo dadna geedkiina intuu xaasid u noqday iska daala oo lafayg u daalan bay lax ka qufacday marka xariyaha dhexdooda laxdii marka qufacda ku laxda maxay leedahay laxdii baa dadna muddo dhowr daqiiqo ah yaa dib ugu sii riwaayay oo laxta la berisa u cuni jirtay sheekada ka bilowday waxay ahayd midii igula yaabka badnayd anoo halkii ku jira ayay maamadii soo toostay waa sodoodii sodoma hayne sodoma weli markaa gaadhin sodoma aysan gaadhin adu markay sheekadu halkaa maraysay bay wadaadii soo toostay maamadii way soo toostay maamadii saas ilqoorka iga soo fiirsay waxay aragtaan oo gaban yara xilligaanu soo jeedo waa 7 saac habeenimo waa saq dhexe xilligaas waxaa soo jeeday dadka waaweyn halkaa inaad ii waabi haddaad gaban yar ahayd oo aad gaban yar bahayd oo aad maaragtay aanad gaadhin xilligii shukaansiga maxaad adigu gabadhan iyo maraatadan iyo filinkan ka wada tahadar dad gaadhin oo gaban yar baad sheeganaysaa may qof dhalinyaro ku soo dhex koray baan ahaa oo shukaansi iyo bulshadaas iswada baacsanaysa ku soo dhex koray marka aniguna baacsiga dhinac kaga jira miyaad iga baaysaa adigu marka sheekada marka halka maraysay wadaadii soo toostay wadaadii bay tay qolka iga fiirsay aragtayna gaban yar halkaas ka martay boodkeed ka talaabsatay meelaha banaanka u yar baxday xilligii baa ku wadaadigiisa ku dhugu soo gaadhine adar noo kala kaxay halkii baa kaga tagi gabadhii maalinkii dambe adhigi dhinaca dudba dhinaca kala dugu jiray dee la xalay baa u sheekay kari waay mogta fashilanta sheekadu marka aan halkaas horta soo maray qisada inaad dad u sheegay ma rabin inaad af Soomaali u yeeriyaa ma aad u sheegtay ma lahayn bal haddana adiga ku haysataa heeshu maalinka kugu dareed ee dunida kugu darada istiri maanta talo maxaa ifka lagu keenay ama kugu farxada badnayd bal hadda noo taab adiguna waniyo waad mahadsan tahay cadow aan horta niyow adduunyadan maalin baa igu daray adu gabadh aad la sheekaysan weyday iyo film baad ka sheekeynaysaa inuu dhiman gaaray ma dhibashay la faayigana halis gali gaaray iska dhibatal rabay kowde maalmaha ka mid ah waxaan ka tagay Itoobiyadan koraan ka soo tagay Hargeysa tagay anoo ilmaha xogaa dhowr sano aad 12 jir meelahaas Hargeysa waxaan tagay Hargeysana wadiga aragay dad qalabsan baa jooga oo indhaha faraha ka gelinayo dadka luqad adag baa laga hadlaa magaalada ma iska dhici magaalada markaas iska dhici waa shaqo tagay niman shaqada dhismaha guryaha ka shaqeeyaan raacay xalaad baa iska baadhayaa ninkayga nin ciyaaraya iska badhigayo waxaan ku yiri ma shaqeyn jirtaa liigu arbaan ku yiri maaniga meel baan iska dhigay nimankii baa yiri waa runtii waa la kixiyay nimanku xagga xalaaradana qoysku way ka horeeyaan
guri baan ka shaqo tagalnay waxaan nahay anigiiyo nin kale aniga laba nin aan nahay laba nin oo kale aniga laba nin oo kale guri baan ka shaqo tagnay gurigii baa nagu yidhi shaqaal guri halkan looga baahan yahay 3 nin baa loo baahan yahay kaale gala shaqadii baan galnay show gurigan aan galaynaa waa la isku haystaaba laba qolaa isku haysto dagaal baa guriga ka dhex taagan oo maalin dhaxdaas oo saa u sii fogeen dad baa lagu laayay gurigii baa shaqadii baan bilownay shaqadii markaan bilownay aan dhaxda wadno aanu shaqadii intaan wax yar noo haray aanu islaanay aad ka rawaxdaan badyoomkiina intaad qaadataan aad magaalada ilaahay gashaan yaa waxaa bilaabatay rasaas caadi bilaabatay war waa sideeyo xagga eegnayo saa'iridda iyo afarta koone ee gurigaan jooganaaba afar cabdi bilaal soo dhigay laba qoys baa isku haysto oo qoys baa dhaxaltooyay intii qoys kale uga dhintay bay meeshu iska daba wareeg kama dhamaatay guriga dad baa ku baabaa sanad walba waa waraato waaba show annaguna bad baan xalay galayba idinka guriga waraato laga sugayo weligaa Allah guri la isku haysta ka shaqayn gurigii baan galay gurigii markaan galay ciidankii noo yimaadeen qoladii guriga noo yimaadeen annagii bay noo yimaadeen oo aan meel xusla galay waliba waxay yiraahdeen nimankii guriga noo dirsaday dadkii guriga milkiilaha ka iska tageen waa saddex ciidan kaliya yaa la xidho kala joogo meesha waa annagu cid dambiili waa annagu wadaadkii noogu weynaa baa la yiri kaala wadaadkii show askarti markuu baqay uu arkay inuu salsalay annaga khaldanayn wallahi dad islaam amni maxaa guriga laga shaqeynayo faraha noo geli annagii baa calaan maartay wadaadkii uu kala hadlayo wadaadkii markuu kala hadlay oo cabsaday macana waxaan loo fahmay askartu inteeda badan marka cabsatay waxa ay gaadinayaan macana criminal tahay macana dambiilana tahay ay ku fahmayaan wadaadkii markuu salsalay uu kala hadlay baan la fahmay inaan yar qaab kana ku saxsanayn وانا لك حي دربي وينو ردي عادي انا مره وانا لو ديده دربي سانو كله عادي كان جل عادي انا لقى دادي قرن حاجه كلي نو استاغتي قرن حاجه نو استاغتي انتي لو قاده sida ariga dekada laga dhoofinayo balbala yaga laga ridiyay wariya anaga yaaba maalintii oo dhan baanu sidii ku jir anagoo is haysano intii kolba dhinac loo wado kolba qorin lagu qabanayo fadhiistadana laayo yaa waxa imaaday labadii qole meesha isku haystay labadiiba soo istaagay labadiiba labadii qoleys maxaa farija haday bad gashay farishkii oo waxa isla markii labada qole imaato xaalku waa iska caadi u noqonaya ma noqonayaan labadii qole ma imaadeen xabad baa isku bilaabatay xabad caadi ah bilaabatay oo tiida caadigeeda dadka meesha ku dhaawacmay bal anagu shaqeynay anaga horta xabadii markay bilaabatay ka cararay meeshii dhibaatada kale waxay tahay guriga anagu shaqadiisa waa dhamaynay yoomkan niga gawr raasanayna maanta ma shaqeynin shaqadii halkana waa tan balaaya ku guurtay way qulbantay aamin duurkii markay haydo aanu cadaabanay oo aanu yaabnay yaa waxaan ku soo noqonay gurigii baan ku soo noqonay waalidanada gurigii labsiis gurigii baan ku soo laabanay duurkii war idinka waxaan dhimasho maaha way arrintaas sidahay waxaan ku neenay mar yoomkeena doon leeyahay rag naga dhigay leen yoomkaaga halkan ka kordhaway walaaya wadooy ka mararka qaar kood way gali bisharad baan haysan waalada adiga seenay bad meeysa bisharadii nafta yaa la hormariyaa geebigeena ugu nooc kala ahay halkii markay marayso labadii qolo mid way tagtay mid baa joogta meeshii qoladii in baa un dhab nagu tiri oo tiri waa nimanka guriga dhisay ee barnaamijka ka dambeeya waa saddexda iyadana la kaxeeyo xabsiga la taxaabo xabsiga hargeysa waxaana la yiri halla wadaadka weyn isagu wadaadku ma hagaagsan wadaadku isagoo intuu maalintii markii hore dhaxay uu nooc yar caagayay waxba ba sheegmay wadaadku ku yela socdo kana isna hadal baa la yiri waxba is dhex dhigay oo marka wadaadkii baa la yiri hadal wuxuu yiri anaga khaladka iska lahayn maxaa anaga guriga dhisay baraha loo geli wadaadkii baa adigu waxbu askarti waxyaabaha u bogaan buska hadlay waxa la islaayinde anaga mudamina saaray kii kala loo wacay runtii wadaadku anagu guur la dhisay inaan faraha la galabeynayn wallaahi billahi askari waraale aanaysan anaga badla war heedaha yoom baa naga maqanay askarta yoomkeeni iyo si uga qaaday falgooda gal waxa sidoo kale aniga la yiri hadal ana u yar meesha waxaan ku askari anaga waan lagu gafaan ku waana la yoom seeji waana la ingaari naftayda khatar bay gali gaadhay xilliga ilaahayna khaladkan waxna lagu soo xiray waa khalad anagu shaqaalaan ahayn guriga ma dhisnayn cidii dhisanaysa
wuxuu waa runtii burka yar ilaa waxaan waa loo kala dhashaa xilligii markii sidaa ahayd waxaan ku wuxuu yidhi waa fasax baati askartii fasax baati waxaa la afska marmo meeqo baafkii lagu fasaxay ilaahay baa adiga hadda lagu qabsado anin baa haddii lagu soo waco oo lagu qabsado war muu kaftamaya haddii lagu yar qabsado ninkaasaa isnaayin baad odhanaysa marka xilligii markay ahayd ya waxaa dhacday askartii wayna fasaxeen waxay dhahneen waad mahadsantihiin waa ladinku khaldamay idinka maadaama shaqaalaha ahaydaan waxaa ladinku xidhay khalad bay ahaydeen gurigana mikrimeedaan ka ahayn waana la fasaxay yoomka naga inta raadsanayna waa taalla marka yoomkii baan ku nidhi nin baan wacnay waxaan ninkii guriga dhisanaya baan wacnay waxaan ku nidhi niyow maanta dhanna liin gaadhay dafaha nagina noo haligtay ilaahay cimrigaaga dhexdaa ka jebiyey noo soo dir amin duurkiyaa wax yagina noo soo diray marka niyow dhacdadaasi dhacdo waxay ahayd ila yaab iga maanta dhan dagaal ma ku jirteen umad gurdhisano duhur iyo lacag la idin siinaya guriga askartu markay imaanayso waa sii dhameynayniba wax yar baa noo dhinnaa oo shaqo marka la galay ilaa weyn shaqo Soomaali waa naqaanaa sagad 3 saac baa la galaa gurigu wuxuu ahaa aan ku fahansiiyo guriga dhismo ka shaqeeyay waan ka shaqeeyay gurigu wuxuu ahaa guri talbiis ma taqaanaa guriga markii la dhiso shamiitada la mariyay laba qabcadood baa loo diray qof kasta waxaa loo diray 3 qabcadood baa loo diray 3 qabcadood marka la talbiisnay 3 qabcadood markay dhamaadaan marka shaqada waad iska tagi kartaa adiga waa talbiistii way kala duwan yihiin guryaha kale caadiga marka noocaas ay ahayd marka niyo shaqadaas shaqayo aad yar oo dhib badan bay ahayd oo aan ka yaabay marka barigaas anigu la yaabka badan inta noola anu haddaan adiga ahay iga wallahu hunguri kuma dhinteen hal maalin bay hunguri qabsatay inaan ku dhiban gaadho halkii maalinna bariis baa aad loo boobay intii meel aad la isugu yimid intii bariis lagu kariyey iyo hilib lagu kariyey iyo dadka ku soo yaaceen qof walba soo qabto afka gelinaya wuxuu arko aanan lafooma ka baqayba saanta dhama soo fiiriyay inta sii fiirinay bariis saa u sii fiirinay isla taalo ma lafa ku dhex jirta uma ma intii